Soomaaliya waxa ay bishii la soo dhaafay soo rogtay 5% oo canshuurta iibka ah, taas oo qayb ka ah dadaalka ay ku doonayso inay ku guulaysato in laga cafiyo balaayiinta dollar ee deymaha caalamiga ah ee lagu leeyahay. Waxaana midaasi ay Axmed Nuur qorta u gelinaysaa inay fooda isdaraan ganacsatada ugu awoodda badan dalka. Dadaalka dowladda waxaa dhowaanahan uu ahaa mid si tartiiba u shaqaynayay. Canshuuraha u soo xarooday dowladda Soomaaliya ayaa sare u kacay ilaa iyo 141 milyan oo dollar sanadkii 2017, halka sanadkii ka sii horreeyay ee 2016 ay ka ahayd 110 milyan oo dollar, sida uu sheegay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Laakiin wax badan ayaa weli loo baahan yahay inta dowladdu aysan gaarin isku filnaansho, taasoo ah tallaabo muhiim ah oo ay ku doonayso sidii looga cafin lahaa 4.6 bilyan oo dollar oo deyn ah, walow qiimaha kama dambaysta ah weli la qiimeynayo. Soomaaliya waxaa la haray dagaalo sokeeye tan iyo 1991, waxaana dowladda lacag la'aantu hayso ay Qaramada Midoobeyna taageerto ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ay quus ka joogtaa sidii ay ku heli lahayd dakhliga ay u baahan tahay si ay ugu bixiso shaqaalaheeda isla markaana ugu qarash garayso adeegyada ay ka mid yihiin ammaanka. Dadku waxay ku weydiinayaan adeegga dhinaca ammaanka ka hor inta aysan canshuurta bixin, laakiin dowladdu ma bixin karto oo shacabkeeda ma siin karto adeegyada loo baahan yahay haddii aan canshuurta la soo ururin. Sidaa waxaa qiray Nuur oo u warramaya wakaaladda wararka ee Reuters isagoo maqaayad fadhiya, waxaana isagoo dhinaciisa sii dhuganaya uu sii raaciyay, waa sheekadii halxiraalihii ukunta iyo digaaga. Xoogaa horumar ayaa la sameeyey sanadkii la soo dhaafay. Waxaa heshiisyo dhinaca canshuuraadka ah ee dowladda Soomaaliya la saxiixatay shirkadaha duulimaadka iyo isgaarsiinta, halka sidoo kale la bedelay canshuur cafintii dakhliga sanadlaha ah ee u soo xaroonayay xubnaha golaha baarlamaanka. Arrimahaasi waa tallaabooyin muhiima waxayna ku tusinayaan daacadnimada adag ee ay xukuumaddu wax ku maamulayso, ayuu yidhi Maxamuud Elhage oo hogaaminaya sanduuqa lacagta adduunka ee hawsha Soomaaliya. In deymaha laga cafiyo Soomaaliya waxay ka caawinaysaa inay hesho lacago amaah oo ay isaga bixiso adeegyadeeda, taas oo sidoo kalena meesha ka saaraysa isjiidjiidka ka dhexeeya maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe, kana dhigaysa kuwo aad isugu dhow. Waxaa kale oo iyana haddii deymaha laga cafiyo Soomaaliya ay ka madax bannaanaanaysaa lacagaha deeqaha ah ay ka hesho dalalka ay ka mid yihiin Qatar iyo Saudi Arabia, kuwaas oo mar walba wata ajendooyin kala duwan oo xasilooni darro ka abuuri kara siyaasadda jilicsan ee Soomaaliya. Kordhinta dakhligeenna waa tallaabo aan ugu gogol xaarayno inaan isaga masaxno deymaha la bixin waayay ee lagu leeyahay. Hadafkeenna aan ku doonayno inaan daboolno masaariifteennana waa mid aad muhiim u ah, ayuu yidhi wasiir Beyle. Taa haddii la xaqiijiyana waxaa ku tiirsanaan doona rag uu ka mid yahay Axmed Nuur. Maadaama Axmed Nuur uu yahay wakiil ay soo dirsatay dowladda Soomaaliya, ma samayn karo inuu dilo ama gacan ka gooyo ganacsadihii diiday inuu canshuurta dhiibo, waxaana shaqadiisu ay tahay inuu qofkaasi xiro. Laakiin Nuur wuxuu sheegayaa in mar walba oo qof noocaasi ah ay soo xiraan ay saaxiibadiisa ama dadkiisu been abuur sameeyaan si ay u difaacaan. Arrintan oo kale ayaa ah qaabka ganacsato badan ay ula dhaqmaan canshuur ururinta cusub ee Soomaaliya. Dhinaca kale, ganacsade Aadan Cabdulaahi ayaa cabasho ka muujiyey canshuurta dowladda Soomaaliya, isagoo sheegay inuu horay u bixiyey canshuurtii dekedda, sidoo kalena uu dhiibo sakada islaamka ee dadka saboolka ah la siiyo. Sidaa darteed, waxa uu sheegay inuusan awoodi karin inuu misna dhiibo canshuur ah 5%. Waxaan fikraddani u aragnaa weerar ulakac ah ama mid aan ulakac ahayn oo lagu soo qaaday ganacsatada Muqdisho, ayuu yidhi Aadan Cabdulaahi isagoo madaxa ruxaya kana biyo diidsan canshuurta laga qaadayo dukaankiisa lagu iibiyo raashinka jumlada ah. Dhibaatada kale ee na haysata ayaa iyaduna waxay tahay in kooxaha mucaaradku ay canshuur naga qaadaan, waxaana hubaa in iyaguna ay canshuurta nagu kordhin doonaan haddii dowladda Soomaaliya ay canshuurta kordhiso, ayuu sii raaciyey ganacsade Aadan Cabdulaahi. Soomaali badan ayaa iyaguna diidan inay canshuurta siiyaan dowladda Soomaaliya oo ay u arkaan mid musuqmaasuq badan oo aan waxtar lahayn, waxaana inta badan miisaaniyadda dowladda Soomaaliya ay ku bixisaa siyaasiyiinteeda iyo shaqaalaheeda rayidka ah, halka shacabka caadiga ah ay arkaan in wax yar lagu bixiyo adeegyada ay u baahan yihiin sida caafimaadka, waxbarashada iyo dhismaha magaalada. Waxaan xoog ku bixinnaa canshuuro kala duwan, wax taa beddelkeeda ay noo qabato dowladdana ma jirto. Wax kale iska daayay,
jidad hagaagsan xitaa ma haysano, waxaana canshuurtani ku dhiibayay qori caaradiisa 10kii sano ee lasoo dhaafay, ayuu yidhi 40 jir darawal bas ah oo lagu magacaabo Xaashi Cabdulle. laakiin wasiir Beyle ayaa sheegay in cambaareyntaasi ay tahay mid laga soo gudbay, dadka Soomaaliyeedna ay isaga qaldan tahay lacagaha gaarka looga qaado iyo canshuurta dowladda. Dowladdu wax badan ayay hagaajinaysaa, waxaana haatan isku dayaysaa sidii ay u soo saari lahayd lambarada canshuurta qofka shakhsiga ah iyo sidii wasaaradda maaliyaddu ay ula wareegi lahayd hoggaanka canshuur ururinta, ayuu yidhi wasiir Beyle. Gabagabadiina, wasiir Beyle ayaa hadalkiisa ku soo gunaanaday, dadku haatan waxay la tacaalayaan xafiisyo dad gaara u furan, askar iskood u shaqaysanaysa iyo qolyo aan ka tirsanayn dowladda oo urursanaya canshuuro aan sharci ahayn. Inaan dhaqankaasi beddelana waxay sidoo kale noqonaysaa dhibaato inteeda la eg, waxaanse isku dayaynaa inaan oodno dhammaan daldalooladaasi. Warbixintaasi waxaa soo dirtay Catherine Horald, waxaa tifaftiray Gelis Elgood, waxaana af Soomaali idinkugu beddelay Yaxya Yuusuf.